maanta waad ii jeediin anoo tuutalahan ka soo muuqa jiray maalmahan meediyaha maanta waad ii jeediin anigoo dhar isboortii wadan ka soo muuqdaa waa guul ilaahay keenay sababtoo ee deegaan doorashooyinka aan ka soo jeedo caawa halaana jiifa karno qawaariijta joogta ma jiro ilaahana iskale mahadaas iyo dadaal la sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu baaqay in lala diro qawaariijta cid walbana mas'uuliyadda iyo deegaan doorashadeeda ay u dhabar adeegto ay dadkeedana baraarujiso kana saarto cadawga ku soo duulay diinta islaamka iyo dadnimada go'aankaas ayaan qaadanay marka alxamdulillah ilaahay mahad iskale anu caawa manaan intay waa faraxsanaa sababtoo guushaasaan gaar caawa deegaan doorashooyinka aan ka soo jeedo waa xur halaana jiifa karin male alxamdulillah waxaanu mahad celinaa dhalinyarada macaawisleyda oo dadaashay ee isxilqaamtay ee iigu yeertay iyagoo deegaankana xur yahay difaacooduna adag yahay iyaguna way ku mahadsan yihiin intaas haddii aan ka gudbo waxaan rajay doonaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo baahida aad qabtiin dhan kastay tahay in anigoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya midda isteedka intaba in insha allah aan ku dadaali doono si wax walbood u baahan tihiin aan ku iskaashanayna anuguna idin ahay afayaan in aan idinka caawinaa ayaan ku dadaali doonaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo intaasu haddii aan ka gudbo waxaan idin leeyahay dhalinyarada qoryaheeda la soo baxday ee nafteeda iyo maalkeeda u soo istaagtay inay ku caawiso dowladda awaamiirta amba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka hadalkii go'aanka uu soo saaro baaqiisi qaadatayna way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan idin sheegayaa ehlaan horta qaraabaan nahay waa idin jeedaa waa mahadsantihiin waa fiicantihiin laakiin waxaan dareensanahay marka waxaan idin sheegayaa caawa wixii ka dambeeye lama dowlad dalka kama jirto wixii ka jira qor haysta waa shabaab iyo dowladda caawa wixii ka dambeeye qoriga guri ku jira leesleeyahay shabaabaa ku dilaya hadhow amba shabaabaa ku dhaafay horta cid shabaab ku dhaafay hadda kabacdi idinka mid maaha cid walba gabar ha noqoto odo ha noqoto wiil ha noqoto mid qorisida ha noqoto cadowgiina wada waaya qawaariijtu waxaan idin leeyahay qoryaha la soo saaro qoriga aan la soo saarina asoo maqlaaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe dawladdu la wareegi doontaa anigana dawladda ma soo sheegi kara sababtoo ah qora shabaab waaya ma aha qora oo ay leedahay oo dawladda la garab istaagsan yahay mana aqbalayno qora dawladda in oo dhabta faygeeda ku jira cabsi maanta ka baad ma la aqbalayo waa cabsaay saana ee maya naftaan ilaahay baa gooyay marana la dhintaa waxaan soo jeedinayaa oon baaq dheer ku soo jeedinayaa in la soo saaro qoryaha ay la mid noqdaan kuwaan la soo saaray cadawna hal noqdo marka ninkii ay dib ku tahay inuu soo bixiyo caawa go'aankaas oo soo saaray meesha maamul ay leedahay dawladda ay leedahay isteed waaye waxa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe ay hor istaagsan oo maqlaa anigana beriga maalin waa haddaan sheego lay malaxad u sheegi qoriga guri ku jira qor walba uu la og yahay waa qoran yahay caawa wixii ka dambeeyo waxaan ka sugaa taliyaha macaawisleeya iyo sargaalka beesha inay soo gudbiyaan hadday soo gudbiyaan dawladdu soo qaadato amba shabaab la aad hadda ha noqdo adawgan la dirirayn amba ha noqdo kan cadawga lagu difaacayo adawgiisa difaacayn intaasuna waa baaq aan u diraayo dadka xoogaa la gagambanayay anku sideeda dhan go'aan gaarnay amar waxaan qaadanay amba go'aan uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in qawaariijta lala diriro naftaan iyo maalkaana u hurno xaq ma aha in tuban iyo dhowr casho qoryaha inta rag la soo baxay difaac ku jiraan gobolna la yiraahdo telefoon la soo diray war nin telefoon diray ha ka baqina halka idin la joogi haddaadan ka baqayna ilaahay ka baqo horta sideeda dhan bini aadam ha ka baqina laakiin xaq darro wixii idin kuma raacsanin wixii xaqana idin ku raacsanna midda kale qoryaha waa la soo baxshay hal la soo bixiyaan nidaam iyo sharci u rabaa horta ninka nin dile go'aanka waad maqlaysiin kama dhigayeen dadka waa la saxiixay maanta ka baad ninku nin haduu dilo
amba walaalkii ha noqdo amba diriskiisa ha noqdo amba ehelka ha noqdo amba nin islaan ha noqdo ninka nin dile waa la dilaa qof haba yaraatee faraqa gashayse diya laga dhiibaayo ma jiro waxaa loo baahan yahay qoragaas naftaada iyo maalkaada inaad ku ilaashato ninka haddii aad disho lagu haysta shabaabka kuma jiro haddina shabaabka ha dilina xildhibaankii yaa yidhi ninkii la dilo waa la dilaa shabaabka dilaysiin waa soo qabaysiin meeshuu jooga ugu tegaysiin laakiin ninkaan la dilayn waa halka walaalkaa waa halka garabkaada waa halka kaas ma la dili karo aad iyo aad aad u mahadsantihiin waktigii oo gaaban waxaan idin leeyahay aniga caawa ii jeediin oo isboorti lahaan idin dhex rogaa waa nabadaan qaatay waaye waa banooniyan cayaar rabaa markii aan joogay nuur dugle tuutaan ku jira habeenkii iyo kobabuud asaan la seexaay mahanaa lagu yimid haddii la yidhaha qorigaan soo qabtay ana qorigaygan watay marka alxamdulilah maanta aniga farxaday ii tahay mar koobaad iyo mar labaad dadaalka iyo dhiirigelinta uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sameeyey iyo qaadashadaan qaadanay iyo guusha aan helnay dagaal haddii la galay hadda waa dhimanaa intii dhimatana allahu naxariistaan leho intaan ku jirna jihaadka dhimatay waa jihaad inta dhaawacantana allah bogsiyaan leenahay soo dhowaada waxaa la rabaa 100% dad ismaqle ehela qaraabaa cadowna hal isu yahay in la noqdo aad aad u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu